laba ka mid ah gudoomiyaasha cusub ee gobolka Banaadir ayaa maanta xilkaas rasmi ah ula wareegay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho. wariyaha iyaga Keen Cumar Makaraan ayaa goobjoog ka ahayd munaasabadaasi warbixintan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. gudoomiyaashan cusub ee maanta xilalka kula wareegay degmooyinka Wadajir iyo sidoo kale degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa dhawaan xilka loo magacaabay. Cumar Cabdullaahi Xasan oo ah gudoomiyaha degmada Wadajir iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Dayniile Cabdil Nuur Faarax ayaa xilalka waxay kala wareegeen gudoomiyaashii hore xilka qaadista loogu sameeyay. gudoomiyaashan cusub ayaa xilfad soo dhaweyn ah oo loogu sameeyay xarumaha degmooyinka Dayniile iyo Wadajir ayaa waxaa la tilmaamay in si weyn ay ugu faraxsan yihiin in xil wareejinta maanta la sameeyo. ugu horeyn degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa gudoomiyihii hore ee degmadaasi Axmed Nuur Cali Siyaad waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in xilka uu ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Dayniile Cabdil Nuur Faarax. buunda la dhisay buundaas gudoomiye waxay u baahan tahay in xal waarta laga gaaro dad sideed qoys gaaraya ka barakaceen biyahaas ku soo laabtay muddo xilaawi waxaan rabaa gudoomiye halkaas dhibaato ka jira degmada Dayniile ayadana xalisto si ay degmada Dayniile ma koror ku daayo dadku ay wada duceystaan. Cabdil Nuur Faarax ayaa waxa uu tilmaamay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in degmada Dayniile loo soo magacaabo sidoo kale waxa uu sheegay in degmadaasi wax badan uu ka qaban doono. waxaan rabnaa magaaladaanu degmadaanu inay dhisanto. degmadaanu waxay ka bilaabataa wadada Jannada Daawud la rogmato wabigay ku tagtaa waxay kaloo ka bilaabataa X control siinka dheer ku tagtaa inay ka qarsoontaa ma jirto dalka ka maqnaan way joogaan. waxaan rabaa marka inaan noqto aan arinta degmada dhisno. waxaa kaloo muhiim ah oo cabasho laga taagan yahay oo aan ognahay ilma adeerayaalow nin Soomaaliya ee degmadan degan ee boonadii dawladda hoose soo goostay ee raba inuu meeshaan bannaan dhiso nooleeyo ilma adeerayaal oo Ilaahay ku gaarshay ninkaas in la garab galo leeyahay mise in la dhibo leeyahay. kaas cadowga degmada waayo ninkaas diiban in la dhiso qofku markuu sharcigiisii processkiisii saxda soo maray hadduu wiil qora garab ku jiro oo istaago oo yiraahdo la dhismo haddii intaas la isiin ay ninkii ay u saalanaato inuu ka tago iyo inuu dhiso ay u saalanaato inuu ka tago dhulka banaana oo waxyaabaha cajiibka oo aan degmada galaysanay. gudoomiyahan cusub Cumar Cabdullaahi Xasan ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamayaa sida ugu faraxsan yahay xil wareejinta maanta dhacday. runtii waxaan rabaa in aan shaqadii hayay aan halkaas hortiin aan ugu wareejiyo si niyad sami ah si kalsooni ah si faraxsanaan ah. waxaan rabaa inaan ugu wareejiyo Cumar Cabdulle Xasan inay hortiin aan ugu wareejiyo mas'uuliyadina laga bilaabo saacadan ay u wareegto walaalkay saaxiibkay Cumar ay ku wareegto laga soo bilaabo min Jasiiro ilaa lagu geeyo Casab Lacade ilaa degmada Dharkeyle Saybiyaano lagu geeyo ilaa Dharkeyle dhinaca kale lagu geeyo maxaa badbaado mas'uuliyadu maanta inay foosho. waxaan hortooda ka ballanqaadayaa inaan si hagar la'aan ah uga soo qaadi doono gudashada waajibkayga anigoo kaashanaya shacabka degmada qaybahooda kala duwan anigoo xoogga saari doona haddii alla yidhaahdo nabadgelyada wax walba waxaa ugu horeeya nabadgelyada. haddaysan nabadaysan jirin noole ma jirto. waa labadii degmo ee ugu dambeysay xil wareejinta ay sameynayaan gudoomiyaasha xilka hore looga qaaday. Keen Cumar Makaraan, Somali Cable, Muqdisho.